بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بشهر رمضان كأما صونكو waxyaabaha uu la gaarkay waxa kamid suxuurta dadku ay suxuurtaan xilliga dambe ee habeenkii si ay maalintii ay si fiican ugu soomaan waana sunno ajir badan laga helaayo oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka suxuurta baraka ayaa ku jirtay marka baahi kaliya looma cuno suxuurta waxa loo cunayaa yani barakadaas lagu sheegay ilaahay inuu inoo barakeeyo waxaan cunayno iyo waxaan cabayno suxuurta maadaama ay saa u fadli badan tahay in dib loo dhigana yani fadligeeda lagu tilmaamay oo يعني آذان كدنبه يعني مفجر كصادق اللي هذا مركور نشوا مركز أي كأجتهد وحاي إلى هيستا مالك بدن أو كم ده ودن كنا أما ها تمجال أو عاصمة مقدشو أما قبل هذا كهر رسنها هذا آذان كأو سحورته يعني دتكو يعني يكون سحورتنا يا هيد أي مشكلة وحي كهيستا آذان مدي أو أن سوافق سنين أو هالوقت أن الآذانين iyo ayada oo xataa aan la kala garanaynin aadaankani makii hore mise waa kii dambe sababtoo ah xilli hore oo mesela saddexda yani habeenimo ama 9 saac qof soo yaqaano ayaa marka qaarkood iyo aadaamada masaajida qaarkood ay bilaabayaan ilaa 5 wax ku dhow ayayna wadaayaan mar walba mid ayaa soo aadaamaya markaas aadaankii kala go'o male dadkii marka waxay kala garanaynin makii lagu joojinayay miyaa oo suxuurta mise waa kii hore ee lagu suxuuranay xilliga nabiga sallallahu alayhi wasallam laba qof ayaa aadaami jiray codkooda waa la kala yaqaanay markaas hadii codkii la maqlo waxa la garan jiray midka uu yahay aadaanka hore inuu yahay iyo midka dambe inuu yahay markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam inna bilalan yu'adhinu bil-layl bilal wuxuu aadaama habeen ayuu aadaama fakulu washrabu hatta yu'adhina ibn maktum bilal wuxuu aadaama habeen iska cuno iska caba ila uu ka aadaamo abdullah ibn maktum abdullah ibn maktum markuu aadaamo macnaheedu waxay tahay waa aadaankii dambe ayaa la soo gaaray suxuurtu waa la joojinaya هذا بلال إنه مجوجو عبد الله بن مكتوم إنه مجوجو يسألوا كلا جرنا مركي إنه كي هو رأي كي دم إنه ياه وحمد أنت سيدر هدي حتى لو كلا جرنا لها الصلاة خير من النوم أو إن يعني لقت لجو آذان كدمبه قارا وحيكون دريان آذان كهورة مركي آذان كهورة يكون جرت الصلاة خير من النوم كي دم إنه يكون جرتها مركي لما جرنا يكون مدو ياه هذا لك محاول لجو حساب تمي كرام إن وقت أنا لا الصعدة ساعدنا قفكو يعني إلى الشظى لكن آذان كي والجو وريري مدو يهين ولا كلا جرن وايد marka waxa yani tala ahaan fiican meesha laga soo gaaro 4 iyo barka ama 10 saac iyo bar qofku inuu iska joojiyo suxuurta 10 daqiiqo dhici karta inay ay ka dhiman tahay aadaanka wuu socdaa oo marka lama garanayo ku yahay laakiin 10 kaas daqiiqo inuu aadaankii dambe wali aan la gaarin ayaa u muuqataayo 4 iyo 40 ay aadaanka yani dambe midka ugu horeeyo uu aadaama marka 10 daqiiqo oo kayd ah وقف فجركي انتو دشاي waxa laga yaabaa muadinki inuu san aadaamin fajirkiina uu dhashay waxa la inoo diray waa inuu fajirka dhashay aadaanka ma waxa la inoo diray marka si waqti ugu soo harakayd ah waxa fiican 4 iyo barka in la joojiyo suxuurta intaas yar dhimana ama 10 daqiiqo ama ka yar baana yani luqluqashadii iyo isda diyaarintii iyo weysadii loo diyaar garoobo marka suxuurtuna sidaas ay muhiim u tahay waxayna tahay waxa cadeynaya qofka inuu bari soomaayo niyadii ayay noqon kartaa oo ah qofkan waqtan uu suxuuranayo macnaheedu wuxuu u diyaarsan yahay inuu bari uu soomaayo marka suxuurtana lagu dadaalo baraka ayaa ku jirta xilliga la suxuuranayana saas ha loo ilaashado aadaamadana hadii la midayn karo ama dadku ay ka wada hadli karaan in aadaanka la mideeyo oo marna la aadaamo kii hore marna la aadaamo kii dambana waa hawl ummadoo dhan wada taalo oo inay yani ka wada hadlaan loo baahan yahay marka ilaahayna waafajiyo si tawfiiqda ay ku jirto ummadana si toosan oo hagaagsan inay u wada suxuurtaan una wada afuraan ilaahay ha garansiiyo hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh